Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, maanta waxaan soo qaadanayaa mid ka mid a dhibaatooyinka colaadda dalka Liibiya ku soo dhowaada mowduuca. Wiil ragga ehelkiisa dhammaan lagu laayay dagaaladii Liibiya. Dagaalada kadib waxaa la qaadaa arrimo cajiib ah kuwaasoo dhacay inta ay dagaaladu socdeen. Liibiya 10 sano ayuu dagaal ka socday. waxaa jirto kelmad Soomaaliyeed taasoo ka hadlaysa dagaalada. Dagaal wiil kuma dhashee wiil ayaa ku dhinta. Dagaaladu mar walba qisooyin xanuun badan ayaa ku hoos duugan. Sheekadan waxay qusaysaa Abdulmanaam Maxamuud kaasoo aasaya meydka walaalkiis inkastoo uusan hubin in qofkaas uu yahay walaalkii. Abdulmanaam Maxamuud waa wiilka keliya ee ka soo haray raggii qoyskiisa waxaana mas'uuliyad ka saarneyd aasida walaalkiis Ismaaciil, balse lama hubo qofka uu aasayo inuu yahay walaalkiis. Abdulmanaam waxaa aaska kala qayb galay ragga magaalada Tarhuna degan kuwaasoo duugta walaalkiis kala qayb galay. Meel u dhow qabrigaas waxaa sidoo kale ku aasan Abdulmanaam aabihiis Maxamuud, walaalkiis Xuseen, adeerkiis Nuuri. Dhammaantoodna waxay ku dhinteen dagaalada sokeeye ee Liibiya. Xitaa 42 sano ee uu xukunka hayay Qadaafi weligeed ma dhicin in dilalka ay heerkaas gaaraan. Haddaan nahay shacabka Liibiya, ma jirto cidna difaacayso, nolosheenna waxay noqotay mid aan la ilaalinaynin, ayuu yidhi Abdulmanaam. Xubnaha ka dhintay qoyska guud ahaan waxaa dilay hal koox oo burcad ah kuwaasoo maamulayay magaaladooda. Maalin ayay xaafadda soo weerareen waxayna la baxeen qoyska wixii rag ahaa, kadibna way dileen qoyska intiisa kale ee hore loo aasay. Mid walba mar ayaa la helay kadibna waa la aasay. Fursadda loo helay in la raadiyo meydadka lana aaso waxay timid kadib markii xabad joojin laga sameeyay dagaalka Liibiya sanadkii la soo dhaafay. Tan iyo 2011 markii la afgambiyay Muammar al-Qadaafi, waddanka Liibiya wuxuu ku jiray qalalaasa dagaal, markii dambena isu bedelay dagaal sokeeye. Cid walba ayaa fahmaysay dagaalka natiijo la'aanta ah ee Liibiya cidda ka dambayso, kuwaasoo ugu dambayn fashil ku dhow. Maanta Liibiya waxaa garab buuxa la barbar taagan dowladda Turkiga, taasoo ka caawisay in dalkaas laga ciribtiro xayawaanada sababta u noqday sheekadan xanuunka badan. Weli waxaa la baacsanayaa generaalka fashilmay ee Khalifa Xaftar kaasoo da'diisu tahay 77 sano. Wuxuu weerar ka soo qaaday magaalada bariga ee dalkaas Benghazi. Wuxuu isku dayay inuu xilka ka tuuro dowladdii la aqoonsanaa. Sida muuqata wuu ku fashilmay. Abdulmanaam walaalkiis meydkiisa waxaa laga qaaday dheecaanka hidde-sidaha DNA-ga si loo baaro loona xaqiijiyo meydka Ismaaciil Maxamuud. Waxaa lagu ogaaday DNA-da. Qaar badan oo ka mid ah meydadka ayaa sidaas oo kale dib loogu soo qufay si loo hubiyo kadibna loo aaso. Waxyaabaha xanuunka badan ee la arkay waxaa ka mid ah in meydka shacabka ay ku jireen haween, dad da' ah iyo carruur da'doodu 5 jir ay ka yar tahay. Sheekadan waxaa ka faa'iidi karnaa in dagaal uusan ahayn xalka koowaad ee dal iyo dadkiisaba u baahan yihiin. Sidoo kale, xuduud midaysan inay wax bedeli karto. Waxaan ka hadlaynaa dowladda Turkiga, waayo waa dowladda dadkeedu inta badan midaysan yihiin. Kuna darso, waxa ay dagaalkaasi Liibiya kaga adkaadeen dowlado manaxayaal ah oo aan ka xusi karno Ruushka iyo Faransiiska. Ugu dambayn, daawadaha sharafta leh, waxaa iga su'aal ah dadkeena maxaan ku midayn karnaa? Fadlan ha hilmaamin inaad subscribe saartid janaalka, sidoo kale like saar muuqaalkan, sheertana ha ka hilmaamin. Intaasi waan kala mudannahay. Waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.